دم مؤمن حسين عبد الله وكمل حفيز كرهال أنت محكمة ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gaaray caasimada dawlad goboleed Hirshabelle ee magaalada Jowhar ujeedka ugu weyn oo soo gaaray magaalada Jowhar ayaa ah in uu la wareego laba gacan ku dhiglo oo dilka kala geystay Jowhar iyo Mahaday oo ku xiran saldhigga booliska degmada Jowhar dam muumin ayaa kormeer shaqo ku tagay saldhigga degmada Jowhar waxa kaga warbixiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe aadan yarow maanta waxaana la jooga xeer ilaaliye ka socdo maxkamadda ciidamada qalabka sida ujeedku u yimidna waxa waaye inuu kormeero Jowhar wixii ku xiran oo eedeysana ah oo ku eedeysan dil ciidamada qalabka sida iyo wixii kale oo anagu ugu baahna boolis ahaan in ma aragtay naga caawiyo oo CID iyo wixii la geyn lahaa weelahaas anagana aan ma aragtay awood u waayni jidka in la marsiyo inuu naga caawiyo ilaahay mahadiis waxaan maanta aan ku wareejin rabnaa hadii Allah idmo laba eedeysana oo ku eedeysan dil oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ah iyo nin ciidamada dalka xoogga dalka Soomaaliyeed nin kamid ah xabad ku jijibiyay kadibna ka baxsaday oo mar dhow la soo helay asiga oo shacabna asigana waxaan ku wareejinaynaa xeer ilaaliyaha ka socda maxkamadda ciidamada qalabka sida dam muumin xuseen Cabdullaahi ayaa ka hadlay ujeedka uu soo gaaray caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle ee magaalada Jowhar waxaan halkaan u imiday in aan la kulmo wax ka ogaado dadka u xiran dambiyada ciidan waxaan la kulmay laba askari oo lagu eedeynaayo inay geysteen dilal kuwaasoo insha Allah gal dacwadeedkoodii iyo ayagaba booliiska uu ku wareejiyay xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida insha Allah iyagana ay wajihi doonaan cadaaladda intaas kadib waxaan u mahad celinaa u hambalyeynaa ciidanka qalabka sida militariga iyo booliiska ee ka howlgala gobolkan waxaan ku dhiirigelinaa inay si laba jibaaraan howlgalkooda iyo shaqada adag ay ka hayaan halkan iyo adeegida bulshada innagana waxaan ka ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaaya magaca xeer ilaaliyaha guud ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Cabdullaahi Buulle Kamey oo ii soo diray shaqadan ii soo idmaday in halkan ka qabto Abubakar Maxamed Baadle caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.